الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله ومركلة إيه برامج كان يكسب سنة تعالوا نؤمن ساعة إلهي سبحانه وتعالى يعني كارايا إنه بل ساعة إلهي سبحانه وتعالى حسنه وإلهي ذكر جيسا إنه بدينه الدونكو وحزئي شرفكو يشاء إنه إلهي سبحانه وتعالى حسه إنه إلهي سبحانه وتعالى وحبدن عرب كيسا كحسه وأدونكو عزئي شرفكو يشاء صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبله ذا قروح ذا بدن أو لبا عرب أو لبا قريش وآذا قروح بدن يقول دوغية وما رأيت أخرنتها أي كتهي أكتودا عيب أي كتهي مركي دين إسلام وسودكتي مركي الروميان وإلهي حسين سبحانه وتعالى إلهي وأقرقاري إلهي وأمعيني إلهي سبحانه وتعالى عزيز شرف بوسيي بين المشرق والمغرب أي أدونك ميل والبا مرين يعني الدين تسلامكم ملك استيقارسية قفك مركة وإلهي ذكر جيسا سبحانه وتعالى أو بديو إلهي وحب الله قاضي أدونك أدوليسن إنه هوستي سكيني دونه وبالحقيقة حاجرتا تسوي الدليرة وحيري مساجد كان قلجل ولو أنا مخاطبان كاها مساجدك شنت الصلاة مساجدك تاغيه مروك أدمو وسيادك اللو ديبو يمرو صفكو وتاغيه وحيري وحان آد لازمي استغفارت إن آد أبضي استغفارت وإلهي وحبض الحصة وإلهي سبحانه وتعالى وحبض عرب كيغا أن ماركتي حسو أيام بديبو إلهي حس كيسان بدي إلهي أمانتي سان بدي إلهي سبحانه وتعالى قلبي جيجا وحكو إرزاقو يدي انت رأرمت كو وحيري هير وحان قاري ويدي قرآن مفرو إلا حدان آيات صومرو أي عذاب كشاكين وان أوين حدين نار كشاكين وان أوين قلبي وحيري من الله لمركي إلي قرآن كوبو بسم الله اللي يرهدو قلبي إلي انتو يدا بيصود هذا نسا محايا لمرضى مركا لردقو oo wasaqda iyo jeermiska laga saaro waxa soo baxaya marada macnaheeda iyo qiimaha ay leedahay iyo dhalaalkeeda iyo iftiinkeeda banaanka soo baxay wiilkan u fiirso wuxuu yiri kullama quraanka aan furo oo aan isdho akhri ama aayad aan soo qado waan ooyin qalbiga ayuu dhaqay qalbiga wasaqdi ka dhaqay qalbiga qalbi iftiimaya ayaa ilin soo quba qalbi madoobaystay weligaaba ku adin khayrku waa bas dhaafiyaan dadkeena khayrku waa bas mar alla markuu arko maxaadiro waa bas dhaafinaya hees waa joojinaya filin waa joojinaya wax kale waa joojinaya ama quraan gudbi wadaad nagada nafta kule saadarteed qalbiga markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala oo yaani quraankiisa uu la ilmeynayo waa maru qalbigu qoyan yahay oo qalbiga la dhaqay oo qalbi la ilaaliyay weey wiilkaas wuxuu yiri muddo ayaan wuxuu yiri quraanka ma soo maro ilaa waan iska ilmeyn quraankaas ma akhriyo ilaa waan ilmeyn waa koow labo wuxuu wiilkii waxaan arkay wiil irsaaqado alla ii barakeeyay هناك فرق إن الله سبحانه وتعالى مال كثير هو يرزقه يقول الله تعالى مال مبارك هو يرزقه ميقا مال بدن له وهو يوبايا وان حتى عصبده ودوان كرين وسكرته ودوان كرين ميقان كل راح يسن كرين مالكود ميقان مال يرله لكن الله سبحانه وتعالى الراحة وقلي يفرحد يرين يبرواقي يبركو حلويل كل عير بان هلا lacagta yar wuxuu yiri aan helo wuxuu yiri waxay igu gaadhaa anoo ban dhamaynin mid kale ku timaada oo mid kale ku timaada oo mid kale ku timaada oo mid kale ku markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ilaahay waa barakay waxaan mar walba arkaya iyadoo ziyaado marka dambe kor u socoto ilaa heer wuxuu yiri markii dambe aan yaqiinsaday waxaan inay tahay wax aniga awood badan وحاجة من الله سبحانه وتعالى كسعت لبر صدح ويلكي هدانا المساجد كمان لها صارن ومساجد كأنا إيمان نبأ قلبي جيجو ما بدي جيجو وحير شو كان سما قان
meelo laga sheekay makhaayada ma aqaan, meelo wuxuu yidhi saaxiibo xun ma aqaan, laqwi ma aqaan, wax kale ma aqaan. wuxuu yidhi waxaan gaaray buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya inaan noloshayda isaga la qaybsado, isaga la wadaago. xaqiiqatan wiilkaas qisooyinkiisu aad bay fara badan yihiin, laakiin adiga i daawan doona ama adiga i daawanaya ama walaalkayga ama walaashayda weli ma tijaabisay dhibta ku haysta, mushkiladda ku haysta inaad ku xaliso dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala. badanaa kuwa duruufaysnaa ku xaliyey ilaahay xuskiisa. waxaan maanta kuu dirayaa erayo yar oo kooban, laakiin ilaahay uu u dardaarmay nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam maalintuu murugeysnaa. waad ku liibaani doontaa oo waad ku farxi doontaa oo dhibtay kaa qaadi doonaan oo waad ku caafimaadi doontaa oo cadowga kaa qaban doonaan oo qalbiga kuu farxad gelin doonaan oo irsaaqdaas wax kugu noqon doonto. maxay tahay? tasbiixda. nebi maxamed maalintuu murugeysnaa oo xaaskiisii dhimatay oo adeerkii dhintay uu keligii yahay ee quraysh maray ku oriyaan iyo maray caayaan iyo maray madheer saaraan iyo maray hadalla xun yidhaahdaan iyo maray duraan uu keligiina yahay, wuxuu alle u waxyooday subxaana wa tacaala inuu tasbiixda badiyo subaxdii iyo galabtii. qur-aan fara badan baa kusoo arooray, suuratu qaaf aayadaha ugu dambeeya, suuratu xijri sidoo kale, intaasoo suuradood buu ilaahay subxaana wa tacaala kusoo arooriyay. saa darteed tasbiixda laazim. subxaana allaahi markaad tiraahdo oo aad tiraahdo ilaahay baa xumaan ka nasahan oo ka dheer, ilaahay baa subxaana wa tacaala sharfan oo qiimo leh, oo aad ku celceliso waxaad qaadatay sunnadii ilaahay uu nebigiisa subxaanahu wa tacaala uu maaragtay marsiiyey. 1 2 waa daawadii alla uu ku daaweeyey nebigiisa calayhi salaatu wasalaam sala allahu calayhi wasalam, waa daawadu ku daaweeyey. tasbiixda fadaa'ilu tasbiix wax la soo koobi karo ma aha. kullamaa qofka tasbiixda badiya waxaa laisku waafaqay qof kasta oo tasbiixda badiya inuu ka baxo oo ka dheeraado murug oo dhan uu ka dhexbaxayo. adigu ma awoodi kartaa waqtiga alla ku siiyey ee hareerahaga ka daadanaya qubanaya maalaayacniga ku socdo, saacad kamida intaad telefoonka xidhid, saaxiibadaa ka tagtid, wax walba iska joojisid, inaad dikriga ilaahay ku mashquusho awood ma u leedahay? hadday jawaabtaadu haa tahay, ku bishaarayso ilaahay wuxuu nebi maxamed ugu bishaareeyey. haddaysan jawaabtaadu haa ahayna dee maxaan kuu qaban karaa? maaragtay falaa yaluumanna ilaa nafsa. qofkii taa sameyn waayo naftiisa un ha eedo. marka ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeyo. kaalaya aynu ilaahay rumayne. ballankeenna waa tasbiixda insha allahu tacaala wiigan insha allahu tacaala iyo istikfaarta aynu badino. qofka ugu yar maalintii 1 istikfaara iyo 1 tasbiixa 1 week gudihiisa fiiri natiijada ku imaan doonto adiga arki doono. sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.